dibadbaxyadii looga soo horjeeday bandowga xilliga habeenkii ah ayaa cirka isku shareeray dalkan Holland. Magaalooyin hor leh ayay banaanbaxyadu ku faafeen, waxaana ka mid ah magaalooyinkii xalay banaanbaxyada sida ba'an ay u saameeyeen Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Zwolle iyo Haarlem. Magaalooyinka Rotterdam iyo Den Bosch waxaa la arkayay iyadoo la biliqeysanayo dukaamada. Waxaa la arkayay dhalinyaro ku labisan jaakado madow iyo maaskaro oo u boodaya dukaanka Derek ku yaala Rotterdam ayagoo halkaasi biliqa ba'an ka geystay. Magaalada Den Bosch xalay waxay ahayd magaalo yaab leh, waayo waxaa lagu arkay falal aan hore uga jirin taas oo dad badan ka yaabisay. Waxaa la biliqeystay supermarketka Jumbo, waxaa la jajabiyey alaabihii yaalay dukaanka Bremer, waxaa sidoo kale biliqa ba'an loo geystay dukaan lagu iibiyo kobaha sportiska. Waxaa la arkayay miraayado badan oo dhulka daadsan iyadoo baaskiiladuna ay wada yaalaan wadooyinka. Burqamiistaha amaba maayarka magaalada Den Bosch ayaa arintaasi caro xoog leh ka muujiyay. Waxa uu isweydiiyey sababta aan loo adeegsanin baabuurta biyaha ku kala erida dadka, maadaama horey loogu diyaar garoobay in banaanbaxyadu ay ka imaan karaan falal amni darro ah, isla markaana dhalinyarada banaanbaxayso oo qaarkood la sheegay in ayba ka yar yihiin da'da qaangaarka in ay banaanbaxyada ka qayb galayeen, isla markaana laga filan karo dhibaatooyin aad u fara badan. Haddaba magaalooyinka banaanbaxyadu waa ay u kala darnaayeen. Amsterdam South waxay ahayd meel fowdo ah, waxaana la arkayay dhalinyaro wadooyinka hadba dhinac u cararaya, booliska dhagxeynaya, dab halkaasi ka holceeyo. Magaalada Haarlem waxaa la arkayay dhalinyaro ayaguna careysan oo halkaasi geed ku gubaya, booliska dhagxeynaya, walow booliska ayaguna aanay yareysaneyn dadaalkooda, balse u muuqday in laga itaal badiyay. Haddaba ganaax fara badan iyo xarig ayaa xala dhacay. 1741 ganaax ayay xala bixiyeen oo lacagta yuurooga ah booliska. Waxaa sidoo kale la xiray dad ku dhow 184 ruux oo loo hayo dibadbaxyadii xala ka dhacay magaalooyinka aan hore u soo sheegnay. Haddaba arinta dibadbaxayaasha waxa ay ka yaabiso dad badan, waxaana la arkayay magaalada Nijmegen oo iyaduna shalay u diyaar garoobaysay qaabkii ay banaanbaxyadaasi u xakameyn lahayd. walow aanay Nijmegen banaanbaxyada ka dhicin, haddana waxaa la arkayay dad hantidooda kasii fikiraya oo dukaanada qaarkood albaabadii miraayadaha maahane albaabo kale oo adag u sameysanaya. waxaa banaanka laga qaaday maqaayadihii miraayadaha banaanka u ooli jiray, maadaama dibadbaxayaashu laga baqayay inay jijibiyaan. haddaba arintii isweydiinta leh waxay tahay dibadbaxa waxa uu salka ku hayay bandowga xilliga habeenkii ah. wasiirada waa ay laaleen arintaas, waxayna ka hor imaadeen in bandowga habeenkii ah la qaado, waxayna ku tilmaameen wax aan la aqbali karin, waayo dad xaq kastoo ay u lahaayeen dadka banaanbaxayay inay ra'yigooda soo gudbiyaan, waxa ay u adeegsadeen falal aan munaasib ahayn. wasiirka amniga ee dalkan Meneer Krabben Hoekstra oo arintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in aanay xaq u lahayn dadka banaanbaxaya maadaama ay adeegsadeen falal argagax leh. waxa uuna sheegay in dadka lagu soo qabto falalka banaanbaxyada in ay ku mudan doonaan xarig. waxaa sidoo kale la isweydiiyey, waxaa arintaas sidoo kale ka hadlay maayarada magaalada Rotterdam iyo sidoo kale Den Bosch oo ayaguna car xoog leh ka muujiyay qaabka banaanbaxyada ay u dhaceen iyo dadka banaanbaxayay falalka ay ku kacayeen oo lagu tilmaamay inay ahaayeen fal dambiyeedyo aan la aqbali karin. haddaba magaalada Den Bosch waxaa saakay isku diyaarinaya dad ayagu si tabarucaada ula shaqeynaya maayarka magaaladaasi si loo nadiifiyo Stad House-ka magaalada dhexdeeda oo ayadu dhibaato fara badan xalay ay ka dhacday. lama oga maalmaha soo socda dibadbaxa heerka uu gaari doono, balse dibadbaxyadu waxa ay u muuqdaan kuwa aan hakan doonin, lagana cabsi qabo magaalooyin hor leh inay gaaraan. xalay dibadbaxyada qaarkood waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen boolis, waxaa la sheegay in boolis uu lug ka jabay, qaarkood kalena ay dhaawacyo fudfudud soo gaareen. waxaa sidoo kale dadka la weeraray xalay ka mid ah wariye photographer ah oo la arkayay dad dibadbaxayaal oo dhalinyaro u badan oo dhagxeynaya ilaa uu dhulka ka dhaco, walow aan la sheegin dhaawaca soo gaaray heerka uu la egyahay, balse arinta faraha ayay u muuqataa inay kasii baxayso, maadaama dadku banaanbaxaya qaarkood aanay fiirinayn faldamiyeedyada kale ee ku hoos dugan, sida in la boobo hantida,
la galo dukaamada laga leeyahay iyo sidoo kale in la jijibiyo hantida. waxyaabaha dadka hadda aadka ay isweydiinayaan waxa ay tahay waxa qaldamay maadaama banaanbaxu uu ahaa mid cabasho ah. waxaa sidoo kale soo baxay khasaare fara badan oo soo gaaray dadka ganacsatada ah ee magaalooyinka banaanbaxyadu ay ka dhacayaan hantida kuleh. sida la arkayay waxaa meediyaha warbaahinta aad u qabsatay haweeneyda iska leh primariga ee ku yaala magaalada Dambush oo iyadu si dareen ku jiro u oynaysa markii ay aragtay dukaankeedii oo la burburiyey wax walbana dhulalka daadsan yihiin. dad badan waxay isweydiinayaan oo aad loo hadal hayay khasaaraha soo gaaray dadka ganacsatada